ilaahay qof kasta oo uu abuurayba murti ayuu ka leeyahay si kasta oo aad xikmadda qofkaasi ku duugan u garan weydo ku kalsoonow oo rumayso inay xikmad dhab ah qofkaasi ku duugan tahay haddii aanu ilaahay inoo sheegin murtida ku duugan khalqigiisa sababta uu u abuuray laba sababood oo asaasi ah ayaa ka dambeeya ta koowaad waa inaan ilaahay la weydiinin waxa uu samaynayo waana tallaabada koowaad ee uu addoonka u qaadayo dhanka ka edebsiga rabbigii la'aanteedna aanu iimaanka ansaxaynin midda labaad waa inuu ilaahay koreeyay inaga doonayo inaynu caqligeena ka shaqaysiino oo dhacdooyinka taariikhda aynu ku qiimayno si aynu uga soo xigano cashiro iyo cibrooyin aynu waaqicina ku daawayno maskax toojinta fikirka falanqayneed iyo inaan jawaabaha la siinin ardayda wax baranaysa miyaanay ahayn in iyaga la siinayo masaaxo ay ku baaraan oo ay iyagu ku dahfaydaan aasaasyada tarbiyadan ugub maxaynu marka ay dadka sidaas samaynayaan ugu ammaanaynaa ilaahay marka uu sidaas masaaxadaas inoo siiyana aynu wax u tuhmaynaa ilaahay ayaynu ka magangalnay wejigiisa sharfan inaynu ka shakina markaasaad igu odhanaysaa marnaba ma shakiyayo waxaan isku dayayaa inaan wax fahmo markaasaan ku odhanayaa saaxiib iskudaygaas fahmidda ah laftiisa ayaaba ah cibaado balse waxaan dareemayaa inaad qof gaar ah tilmaamayso markaasaad ii odhanaysaa qofaan si gaara u tilmaamaya ma jiro laakiin marba haddaad ii weydiisay waxaad iiga warantaa tusaale ahaan murtida ku jirta abuurista qof daalim ah sida fircawn oo kale saaxiib fircawn waa mid ka mid ah tusaalayaasha ugu mudan ee loo soo qaadan karo murtida uu ilaahay ka leeyahay abuuristiisa haddii aanay fircawn iyo kuwayawiga la midka ay jiri lahayn maba aynan fahmeen sunnaha ah imtixaamida in ka xoogan lagu imtixaano awood maamuus iyo talis ka taagta daranna lagu imtixaano samir iyo halgan fircawn iyo kuwa la midka ah la'aantooda ma fahmayno sida uu ilaahay xorriyadda dadka ugu siiyey ee uu ugu seeta dheereeyey si ay rabitaankooda iyo ikhtiyaarkooda uga caabudaan ama ugu caasiyaan haddii uu ilaahay adeecidiisa dadka ku qasbi lahaa imtixaanka adduun ee soo hari lahaa muxuu ahaan lahaaba sidee ayay dadka uga gudbayaan haddiiba aanay ficiladooda xorriyad u haysan oo rabitaan madax bannaan aanay lahayn qofka wax lagu qasbo imtixaanba laguma laha ka wax lagu sanduleeyana waa qof la xadiday damciisa oo waxba lama weydiinayo inuu ilaahay daalimka gabadfalaha ah awood siiyaa waa inuu xujada ku oogayo in aanu si toosa u soo faragashanin ficiladiisa oo dulmigaas aanu ka qabanin kuwa uu dulmiyayo marka uu dulmigaasi geysanayana waa mahuraan si uu ugu imtixaano kuwaasna samirka iyo halganka dulmiga saaxiib haddii aanu fircawn jiri lahayn ma aynan fahaneen in aadamuhu uu ka taageer yahay oo awooddiis aanay gaarsiisnayn heer uu ku bedeli karo qadarka ilaahay markii uu fircawn riyada ku arkay dab weyn oo qasrigiisa dhex eryanaya qolyihii riyooyinka fasirayeen ay ugu sheegeen inuu yahay wiil ka dhalan doona reer bani israa'iil oo burburka mulkigiisa sabab u noqon doona ee uu bixiyey amarka ah in la gowraco wiil kasta oo reer bani israa'iil u dhasha ee sannado badan sidaas loo gowracayay uu haddana markii uu muuse dhashay isaga laftigiisa qasrigiisa ku barbaariyey isaga oo aan waxba ka qaban karaynin markaasaynu fahmaynaa in qadarka ilaahay ay shaki la'aan tahay inuu fulayo saaxiib haddii aanay fircawn iyo kuwa la midka ah jiri lahayn ma aynan ogaaneen in ay qalbiyadu ilaahay gacantiisa ku jiraan oo hadba sida uu doono uu wax u jeclaysiiyo ama uu uga masaxo bal suurayso markii ay aragtay Aasiya xaaskii fircawn sanduuqii looxa ahaa ee biyaha dulhehaabayay ee ay ilaaladii amartay inay u keenaan markii ay furtay ee ay muuse naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatay ee ku aragtayna uu ilaahay gacaltooyadiisa qalbigeeda geliyey gacaltooyadaasi wata ka hor joogsatay nebi muuse naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee ee gowracii sidoo kale waxa ay dadkaasi dhibka badana u jiraan si aynu u ogaano in abaalmarintu ay ku xiran tahay hadba camalka nooca uu yahay iyo mugga uu la eg yahay nebi muuse naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee hooyadiisa markii hore waa laga xarimay iyada oo amarka ilaahay fulinaysa markaasuu haddana ilaahay u sameeyey ilmaheedii hooyo labaad oo iyada ka dhaxashay saaxiib haddii aanay fircawn iyo kuwa la midka aysan jiri lahayn ma aynan ogaan karayn inuu qof kale noloshiisa qasi karaa fasahaadkeena iyo halisnaanteennana waxa aynu ku eedeyn lahayn oo aynu cudurdaar uga dhigi lahayn deegaanka iyo duruufaha balse ilaahay waxa uu xaaskii fircawn ee Aasiya inooga dhigay xujo cad si aynan gafafkeena ugu cudurdaarin in lamaanaheena uu inagu sababay hal qasri ayuu ninkuna ka dhex lahaa waxaan ahay rabbigiina ugu sareeya xaaskuna ay ku dhex sujuudaysay oo ay ka dhex lahayd waxaa xumaan ka nasahan rabbigayga ugu sareeya saaxiib ma aragtay hadda xikmadda ilaahay ee xeesha dheer saaxiib haddii aanu fircawn jiri lahayn ma aynan ogaaneen in guryuhu ay leeyihiin siro lamaanuhuna iyaga oo guri ku wada nool sariirna ku wada seexanaya haddana masaafada u dhaxaysa ay ka fog tahay inta ay cirka iyo dhulka isu jiraan bal u fiirso kala fogaanshaha intaasi la eg mid ka mid ah gaaladii uga caansanayd taariikhda ayaa qaba mid ka mid ah muuminadihii uga caansanaa taariikhda saaxiib
masaafooyinka ma aha waxa dadka kala fogeeya ama isu soo dhaweeya ee qalbiyada ayuunbaa sidaas sameeya. saaxiib, haddii aanu Fircawn jiri lahayn ma aynan ogaaneen in walaaluhu mararka qaar ay noqdaan halbowlaha wadnaheena, oo markii ay Nabi Muuse hooyadiisa biyaha raacisay ee ay meel ducada la fadhiisatay, walaashii sanduuqa ayay daba cararaysay iyada oo doonaysay inay ogaato halka uu webiga geynayo walaalkeeda. markii uu diiday dumarkii in ay naasnuujiyaan inta ay qof talo u wada isaga dhigtay, ay u tilmaantay qoyska faala-qaadi kara naasnuujintiisa, sidaas ayay sabab ugu noqotay in uu Muuse ku soo laabto dhabta hooyadii. markii uu Ilaahay Nabi Muuse naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay ku maamuusay nebinimada, waxa uu yidhi Muuse: wa akhii Haaruun huwa afsaxu minni lisaana, oo ay micnaheedu tahay walaalkayga Haaruun ayaa iga aftahansan. kama aanu xumaanin inuu tilmaamo halka uu walaalkii kaga fiican yahay isaga. dhiigga biyo ma aha saaxiib. haddii aanu Fircawn jiri lahayn ma aynan ogaaneen inay addoomuhu iyaga sameeyaan dadka addoonsanaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati Zukhruf aayadda 54 wuxuu ku yidhi: fastakhaffa qawmahu faataacuuh, oo ay micnaheedu tahay waxa uu Fircawn fududaystay qoomkiisa wayna adeeceen. markii uu arkay inay madaxa u foorarinayaan ayuu sidii faraska dusha uga fuulay. gaboodfaluhu sidiisa daalim uma noqdo ee addoomaha ku hareeraysan isaga ayaa sameeya daalimnimadiisa. ma fahantay hadda sida ay muhiimka u ahayd inuu jiro Fircawn si aynu u fahanno sunaha Ilaahay ee nolosha? waa walaalkiina Cabdulxakiim Axmed oo idinla doonaya guusha labada daarood. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.